بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض كلنتي وعنا وناكسن صاحبة قيمها بدن ميل والبود دافع عالمك عاد كشوكتان هل كاد نقد دعوان يساوي يوتيوب ده بالخير أحمد channel يوسف حايبر أوفيشيال سود هذا مركله صاحبة قيمها بدن يا كحلا channel ذا أنا كنا إنها برت يوتيوب أنا جوحنا يوسف محمد يوسف حايبر أنا جونا وحنا بالخير أحمد علي بالخير جانا فضلا هدية نقول عسبتين channel ذا سبسكرايب صار كم بلين كفروم مقال كشير قريه لو ذاك أصحابت هذا بالخير سوده يوسف هذا ما أنت وادوا هاي إن أصحابتنا وحنا لي هاي إن كحرا إن حيبرو بالخير وحنا لي هذا وما سنتين إن وحبضن وأنا كم خنين هذه لا تكون حسنين أنت كم مقيين كوايدي أو يدلوق حتى يقصرها هذه مركب وحنا لنا هاي ديما موجين إن الحمد لله وأنا بتقبنا أذنكم حرجينا إن أنا بتقبتين وعافمات قبتين إن مشغول كنا حديث شيء دون هذا قدر وما سنتين صاحبة قيمها بدن طبعا قولي قاعد نتكلم سؤال الجرني هي مقالة مقدشة لكن عاو وحنا نتكلم سؤال لنا مقالة كلا أو كم من مقالين كصوماليات تذكر صوماليات دقيقين وحنا كسرنا هاي حرنتي قبل كمدق مقالة قال كعيو ونسافر كنا بدني أنا جي حاجيدو رنتي تذكر قال كعيو كنا هي مقالة برنتي عاد بوناكسين تاي ومقالة رنتي سوتشي دشله aad u wanaagsan horumar badan uu ka socdo dhismaysa aad u qurux badan marka magaalada san safar ku joognaa dabcan waan idin wadaagi doonaa hadii Allah uu dalraale ka noqdo muuqaaladii vlogski aan ka duubnay magaalada Gaalkacyo insha Allah bidnaa al-kareem laakiin qaraabo salaankii iyo asxaabtii iyo hawlihii baan nagu batay maadaama dabcan markii ugu horeysay ay tahay anigu aan maadam Gaalkacyo الخير هذا كهرباء مدل لكن يدخل أنا مرة بدنا هذا هالمرة ما أنا إيمانين أرسلني ومجال ذي إن مدوين كلفوا عن إماديان قال كأي مدة بدنا بنجو بجري لكن أيام تمح بدنا كم قناع إن حاجة وامر كورس سيجا مرة إمادي لكن كمون النجانين لكن مركي لبعض عادي مركي لبعض قال كأي إمادي عادي مركرنتي قال كأيو مجاله ضد جوبي runtii boqolkiiba boqol goob ah ay ku nool yihiin weeye ma sha Allah wallahi runtii waa jeclaanaysa oo anagu ninka waxaan isleeyahay talo miska digtaanba oo miska joogtaan mar dhow guriyan ka dhisrabnaa insha Allah bidnaa al-kareem baasa ka gadanay sida hadaan qorsheynay inaan ay degno dadkii reer Muqdisho iyo dadkii kale Soomaaliyeed ee nagu xidhnaaba aad baan ugu xiisnay insha Allah bidnaa al-kareem waxaan rajaynaynaa anagoo nabad qabna inaanu ku laabano magaalada Muqdisho safarka Gaalkacyo safarro kale ayaan ku sii xijin doonaa hadii Allah uu dareemo oo deegaanada gobolka Mudug aanu ku mari doono insha Allah waa ka xunahay inaanu idinka daahno oo waqti runtii aad u badan aan sugtaan siiba dadkii teamkii riwaayadaha ku xidhnaa oo runtii komitiyada riwaayadaha hadda u dambeysaan soo galinay wali noogu soo qoraya qaybihii kale intee aadeen waa ka xunahay waan idinka raali gelinaynaa insha Allah markaan xawar ku soo noqono hawsha dalxiiska iyo damaashaadka iyo safarku noo soo dhamaado idinka Ilaahay ayaan halka idinka si bilaabi doonaa bilkhayr Yusuf waa saa sheegtay dadka reer Muqdisho waxaan leenahay in aad kugu xiisnay idima moogin Muqdishona kaliba meel aan ku doorsado kuma taala Soomaaliya sidaan anigu aan filaayo in goboladeena in Soomaaliya meel kasto ay tahay waxaan jecelnahay mar gobol kasto oo Soomaaliya inaan tagno Soomaaliya joogto in haduu Ilaahay noo suurto geliyo insha Allah in marka ugu horeysay waaye Gaalkacyo ka bilawnay gobol kale ku sii xidhi doona in kasto hadda Gaalkacyo degmooyinka ku xeeran aan tagi doono haduu Ilaahay idmo laakiin safaradayna soo socdo gobolada aan hay'ad Soomaalida ay degto kale tan ku xidhi doona dad badan ortore isoo qoray Yusuf dad waxay yiraahdaan Hargeysa imaaw aad gabadha Hargeysa kan aan u dhawayaa insha Allah waa soo wadaa dawladda reesanaag waxay ku dhawayaan kan dumashidayaan aad sanaag iyo Maroodi Jeex iyo Togdheer iyo Awdal iyo Saaxil iyo Sool insha Allah inta waan geyn doonaa haduu Ilaahay iyo gobolada kale ee Soomaaliya haduu Ilaahay inta waan geyn doonaa insha Allah bidnaa al-kareem anigana gobolada Soomaaliya ko waxaan ka bilaabay Yusuf Kane ortoray gobolkii Mudug qof walba aan hay'ad waxa jirto Soomaalida qofba gobol ka soo jeeda daanaga dadka Soomaaliyeed nahay Yusuf gobolada waqooyi ka soo jeeda in Somaliland anigana gobolada koonfureed ee Soomaaliya ko waxaan keenay gobolka aniga aan ka dhashtay galmudug aad ama se mudug xarunta
magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aad iyo aad insha Allah magaalooyinka ku soo xigo oo Yusuf keeni doono hoos noogu soo qori doontiin anigana ilaahay idinkiisa waxaan rajeynayaa inaan Somaliland mar ilaahay haduu naftii daayaan cagaha soo dhigo anigi odagayga wada soconay insha Allah qasab waay waa Somaliland inta tagayso la iskuma hayo la shaki burca iyo xaruntii xayaatay ragga gobolka ragga inta waa tagi doona gobolka awyaasha waa tagi doona gobolkii tacliinta waa tagi doona awda la hadii Boramo aad u jeclahay gobolkaas iyo sidoo kale caasimadii Hargeysa waa lama huraan sida Muqdisho ee halkaas qalbiga iga taalay wadnaha iga taala in sidoo kale to Ceerigaabo meelna ku doorsameeno oo soo socona dadka jooga ayagana gobolada Soomaaliya sida aan xahatay gobolka Bari Nugaal dhinacan kale to Galguduud kasii bax ilaa iyo Kismaayo ilaa gobolada halkaas tirada badan aan soo koobi kari waxaan jecelnahay inaan ku dalxisno gobolada insha Allah dadkeenana aan farxad la soo qaadano sida Gaalkacyo kale aad u mahadsantiin inta yarta oo kala mashquulku uu dhacay waxay ahayd anaga safarayno ahayd safaran ku jirna maadaama aan safar ku jirno dadkana waxba lama ana wadaag karin oo mashquul aad oo jiro dadkii iyo teamkeenina aan ka soo tagnay waxaan jeclaysanay inaan goboladeena sida u qurux badan yihiin meelaha nabadda ah horumarka ay dadkeenu gaareen aniga kaliya Gaalkacyo mudaan ka maqnay aadan uga helay sida ay u santay wada Gaalkacyo marka waa runtii magaalada 19 joogay oo hadda 2019 aniga markaas ay ugu dambeysay dadka xilligaas ugu dambeysay wax badan ka dambeeyay sidoo kale aad iyo aad wax badan ka dambeeyay runtii Gaalkacyo wax badan baad idinka hayaa oo qosola aad iyo oo runtii soo jiidasho leh maxaan ku raadayay marka insha Allah Gaalkacyo gadaal ka waraysan doona ilaahay idmo ma Gaalkacyo warka idinka hayo halkan aan taaganay idin keen doona insha Allah ku xaslay marka Gaalkacyo ka soo baxdo sheeg aad la wadaagtid dadka macnaha marka insha Allah ballantaas noo hanaysa marka Gaalkacyo ka baxo war badan aan idinka hayaa insha Allah Gaalkacyo inta joogtana afuuftada horta reer Gaalkacyo oo mahad celinayaa runtii dad qiimo leh gob ah runtii wanaagsan runtii dul xariira way dadka reer Gaalkacyo ku nool lama sheekeyn karo saaxiibadii iyo dadkii qiimaha lahaa ee nagu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo iyagana waan mahad celinaynaa dadkii kale shacabka ahaa ee reer Gaalkacyo ee iyaguna sida qiimaha iyo sharafta iyo karaamada ku jirto runtii noogu soo dhaweeyay noogu marxabaysiiyay iyagana waan mahad celinaynaa ma sha Allah mas'uuliyiintii gobolka iyo mas'uuliyiintii degmada iyaguna runtii soo dhaweeyay iyagana waan mahad celinaynaa ma sha Allah insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan rajaynaynaa inaanu Gaalkacyo muuqaal qurux badan oo Gaalkacyada maanta ah inaan idin soo duubno dad baa waxay yaqaaneen Gaalkacyadii shalay Gaalkacyadii duraadii ka horeysay laakiin waxaan rabnaa inaan dadka la wadaagno Gaalkacyada maanta aad iyo aad Gaalkacyada maanta isku ma jirtay waa Gaalkacyo waxay u kala tahay waqooyi iyo koonfur aad iyo labaduba lagama sheekeyn karo Gaalkacyo waxa waaye way horumartay ilaahay waxaan ugu rajeynayaa horumarkan hadda ay haysto mid ka sii qurux badan inay hesho dadkeeduna ay nabad iyo barwaaqo ku noolaadaan isdhexgal qurux badan iyo horumar qurux badan ka jirto nabadana ay xeetay mar walbaba meel hadii nabad ka jirto wanaaguna uu imaan doona aad iyo nabada lama huraan ah ilaahay waxaan ka rajeynaynaa horumarka qurux badan meel kasta oo Soomaaliya degantaa inay hesho aamin oo Soomaaliya oo dhan ay noqdaan dad dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo danahooda aqoonsada anaguna waxaan idin leenahay shacabkeeni iyo dadkeena daawo jiray dibad iyo gudoba waxaan idin leenahay aad ku raxiisnay insha Allah haddaan soo laabanana waxaas wax ka badan idin keen darwaadin halkaas ka sii socdo doona aad u maasantihiin saaxiibada qiimaha badan intaas waa warbixin kooban oo jeclaysanayaan idinla wadaagno maadaama runtii dadkuna sugayeen insha Allah wixii inta ka dambeeya muuqaalo idin xiiso geliya iyo runtii dhacdooyin aad u xiiso badan oo idin ka soo gudbi doona gobolka Mudug ayaa daawan doontaan aniga iyo xaajiyaduba waxaan idinkaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh